kawaankii malayga hore waa sax waay maxaa kawaankii malayga oo hore haddana lagu iibiyo hilibka xoolaha oo ariga ayaan joognaa maamooyinka waxaan nahay ku iibsado hilibka oo ka ganacsado hilibka bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u sheegaynaa dowladda Soomaali shalay maxay ahaydey 2024 taariikhdu markay ahayd 29kii ayaa waxaa noo yimid ciidan ay noo soo dirtay maxkamadda gobolka aan ka nimaado ka socono dhahayaan waxay nagu yiraahdeen waxaana loo soo diray maamooyinkan inay meesha ka baxaan oo kawaankan dhammaantiis ay faarujiyaan waxaan ku dhahnay xageen u baxaynaa shalay markaan soo galayna qora iyo dil ayaa nagula soo galiyay xasan sheekh maxamuud doorashadiisii hore asaga oo maxay ahayd jooga hal bil ayaa meeshaan qora nagula soo galiyay waxaan ku iibsan jirnay hilibka meeshii suuqii hore oo dahablaha waxaan nagula soo galiyay qora caaradeed waana la dilay gabdhaha gacmaha laga jabiyay saas awgeed meeshaan nagula soo galiyay ayadoo qashinquba qashinkii aan ka nadiifinay baabuurka loo yaqaan BG aan 3 bari qashinkii yiilay uga daldalaynay qashinkii waa ka nadiifsanay dadka hadday nagu barteen annagoo waxaan soo galnay kawaankan xoolo haysano xoolahayni waa ku weynay deynaan ugu gashay naf iyo maal intaba waa ku weynay dowladda Soomaaliya waxaan ka codsaynaa meel aan u socono iyo meel aan aadayno ma naqaano suuqaan ilmahayna aan ka quudinaa ilmaha annaga hooyo u annaga aabbo u annaga abti u annaga ehel u cid kale oo noo joogto oo u shaqayso ma jirto waxaan kicinayaa dowladda Soomaaliya niman isku sheegayaan oo dharkooda wataan oo nagu yiraahdeen gobolka nagala soo diray waxaana soo diray Madaale marka Madaale waxaan u sheegaynaa waa gudoomiyahayni waa maxaan hooyooyinkiisi waa asaga uma jecel hooyadiis in la dhibaateeyo walaashiis in la dhibaateeyo islaantiis in la dhibaateeyo hooyooyinkiisaan anaga yoona dhibaateynin yoona kicinin yoona barakicinin yoona baabi'inin anagu baab ama doonayno habeenka 7 saac oo habeenimo ayaan maxay ahayd dambiil waxaan ku saarsanahay laamiyada eeyahana soo bursadaan waxaan noo miciina oo naga reebay eeyaha cabtooyda laamiyada dhacdhacayso dawladda ma cabtooyda inooga liidataa oo naga reebayso eeyaha maya waa diina warkaas annaga karfantayna madaxay noogu jirta amarkaas waxa noo soo baxay 2024 bishii 7 29keeda amarkaasna la siiyay degmadana howlwadaag 30kii aan nagala wacay marka aan degmada aan tagnana waxa uu gudoomiyaha degmada howlwadaag waa sax ciidanka shalay idin yimiday hadalka ay idin yiraahdeen waa sax in kagamana dambayso waa bixaysiin waa amar ka soo baxa dawladda 10 bari gudaheeda ku bixaysiin uma bixi karnaan dhahna 10 bari gudaheeda waa ka diina sidii aan ku soo baxnay sabdiga waa ugu dambaysaa leeyahay annaga markay ciidan noo soo dirto dawladdu annaguna aan diina inaan baxno maxaa diiday ciidanku inayna dilaan waa maya wayna dilayaan marka xasan maxamuudow madaxweynahayna yaa tahay baaqan ku diraynaa waxaad yeelaysaa xildhibaanada dawladda aqalka sare iyo aqalka dhexe inta waxaan u diraynaa baaq ra'iisul wasaaraha madaxweynaha inay naga soo gaaraan hadday og yihiin way og yihiin naga soo gaaraan haddayna ogeyna hana maqlaano hanoo gargaaraano annagu meel aan ma naqaano in ma naga baahan haddoo Madaale run sheegay wax noo qabaayo nimanka ilmaha naga dhalay oo duurka uga tageen hanoo soo xixiro hanooga qaada bil markaas guriyaha waa joogaynaa laakiin mar kale maya waxaan u sheegaynaa ninka la yiraahdo Madaale iyo macallin Mahdi meeshan ka bixinaya leeyahay macallin Mahdi iyo Madaale irsaaqada meel kale Allah ka siiyo kawaanka aniga ka soo galin waxay dheen kawaanka waa la idin dhisaa adinka hoos aad degaysiin korna dawladda degays xagee lagu arkaa dawlad kawaan hilib lagu gadaa korka degays waligeed xagee lagu arkaa annaga waa diidna warkaas karfantayna madaxna ugu jirto taariikhda oo habraaq waayeelada ku leeytira suuqa bakaaraha yaan la dhihin waxaan kaloon baaq u diraa gudoomiyaha howlwadaag gudoomiye Bashiiro hortaa meesha gudoomiye joogi jira annaga been madaxa noo salsalaaxin adinkaan maxay ahayd idin shaqeeyahana dhihin degmada burburaysa waa degmadaadi waxa la baabi'ihay waa weeyelida ku shaqaysanay annagu warkaas waa diinay in ma haynay annagana oo ku baaba'ayna kawaankan haddii cagaf loo soo dirayta way nagu kordumay haddii askari noo soo dirana way nagu dhex dilaa wassalaamu calaykum.